Assalaamu calaykum. Inta badan dadka dunida jooga waxay ku fekeraan tiknoolajiyadda iyo warshadaha si ay u sameeyaan balaayiin dollar. Jeff Bezos, Bill Gates iyo Mark Zuckerberg waa shakhsiyaadka ugu taajirsan dunida. Macluumaad ururin dhawaan la sameeyay waxay muujisay 9 qof ee dunida ugu taajirsan inay ka hanti badan yihiin 4 bilyan ee ugu faqiirsan dhulka. Way adag tahay inaad rumaysato tirakoobkan, laakiin waxaa ka sii yaabin doona haddii aad ogaato qofkii ugu hantida badnaa taariikhda inta la xasuusto. Waana boqorkii Mali ee qarnigii 14aad, Musa Keita, laakiin taariikhdu ku xasuusato magaca Mansa Musa. Haddii aad ku cusub tahay halkan, ha hilmaamin inaad naga mid noqoto. Riix subscribe kadibna taabo gambaleelka. Waxaa isbuuc walba kuu soo dhici doona mowduuceena isbuuclaha ah insha Allah. Mansa Musa waxaa loo aqoonsaday qofkii ugu hantida badnaa taariikhda, waxayna hantidiisu gaartay heer aan la aqbali karin. Ilaa xilligan ma jiro hab loo barbardhigi karo shakhsiyaadka hadda qaniga ah. Mansa Musa wuxuu qarnigii 14aad qabtay xukunka boqortooyadii Mali. Xilliyadiisii ugu horeeyay ee xukunka wuxuu xoogga saaray xoojinta awooddiisa ciidan iyo ganacsiga, wuxuuna sameeyay olole military si uu u ballaariyo xukunkiisa, isagoo isha ku hayay magaalooyinka ganacsi ee Timbuktu iyo Gao, taasoo keentay in xukunkiisa fido. Intaas kadib waxa uu wacday arrimaha caalamiga ah isagoo u maraya diinta, waayo Muuse waxa uu ahaa qof muslim ah. Islaamnimada ayaa si fiican u gaartay xilliga waqooyiga Afrika iyo wadamada Saxaraha ka hooseeya, waana meesha ay ka heleen ilbaxnimada iyo cilmiga. Waxayna isku xukumi jireen sharciga Islaamka, waxayna wax ku qori jireen luqadda Carabiga iyagoo ganacsi toos ah la lahaa qaaradda Aasiya iyo Carabta. Ilbaxnimadii ay ka heleen Islaamka iyo awooddii dhaqaale waxay Mali ka dhigtay boqortooyo awood badan. Muuse waxa uu doonayaa markan in Mali boos fiican ka soo gasho boqortooyooyinka Islaamka ee xilliga jiray. Xilligan Yurub waxaa ka jiray dagaalo, macluul iyo faqri daran. 17 sano markuu xilka hayay 1324kii, Muuse waxa uu go'aansaday inuu aado xajka magaalada Makka al-Mukarrama oo u jirta Mali 4000 mayl. maadaama qof walba oo muslim ah waajib ku tahay haddii uu awoodo inuu hal mar oo noloshiisa ka mid ah uu aado xajka. haddana ma ahan markii ugu horeysay Muuse uu xajiyo, oo 2 mar ayuu horay u sii xajiyay, laakiin markan waxay ahayd dhoolatus. waxa uu horay u sii kaxaystay xamuulkii ugu yaabka badnaa taariikhda bini'aadamka, waxaana la socday 60,000 oo nin, waxaana ku jiray 12,000 oo addoomo ah oo ku labisnaa xariir, kuwa oo wada silsilado dahab ah, 600 oo geel oo midkiiba uu wado in ka badan 10 garaam oo dahab ah. sidoo kale Muuse wuxuu horay u sii kaxaystay xaaskiisa iyo 500 oo addoomo ah oo ayadu lahayd, waxaana intaa dheer wixii ay quudan lahaayeen dhammaan dadkii aan hore soo sheegnay iyo xoolahaba, maadaama dhulka la marayo uu ahaa mid saxaro ah aan dhir lahayn. si uu u fuliyo waajibkiisa diiniga ah, wuxuu u qaybiyay dahab masaakiinta iyo qof walba uu hore u sii maro, waxaana la sheegaa in jamco walba uu masjid dhisayay intuu ku jiray safarkaas. wuxuu bilooyin ku hakaday suuqyada Qaahira halka uu kula kulmay boqorkii xukumayay Masar, boqor Naasir, wuxuuna Qaahira ka iibsanayay waxyaabaha xasuusta u ah oo ay haysteen dadka, wuxuuna ku iibsanayay qiimo waali ah oo aad qaali u ah. boqorka wuxuu ku qarash gareeyay dahab aad u fara badan magaalooyinka Makka, Madiina iyo Qaahira, taa oo sicir barar ku riday qiimaha birta. inkastoo uu isku dayay inuu xakameeyo qiimaha dahabka, waxay ku qaadatay in qiimihiisa ku soo laabto 10 sano. bal ka fikir intaas. qarniyaalo badan dadka reer Masar wali waxay ku sheekaystaan Muuse. markii Muuse ka soo laabtay Makka, waxa uu horay u soo watay macallimiin iyo injineerada dhismaha, isagoo doonayay inuu Mali ka dhigo xarunta dhaqanka iyo Islaamka. wuxuuna doonayay in magaalada Timbuktu ka dhigo xarunta dhaqanka Islaamka, wuxuuna ka dhisay dhismooyin badan ee boqortooyadu degi lahayd, waxaana ka mid ahaa qasrigii madaxtooyada, masaajido, maktabado, jaamacado iyo masjidka weyn ee caanka ah ee Jinguwarbeer, kaa oo ilaa maanta ku yaala magaalada Timbuktu. taa waxay sababtay in barashada diinta Islaamka ku faafto Mali, Timbuktuna ka mid noqoto magaalooyinkii ugu waaweynaa Islaamka xilliga. dowladihii ugu waaweynaa ee xilligan waxay ahaayeen dowlado Islaam ah, laga soo bilaabo Isbayn ilaa dhexbartamaha India. Mali
waxay noqotay xarunta islaamka ee waqooyiga Afrika iyo wadamada saxaraha ka hooseeya. Horay waxaa loo yiri cusbadu waxay ka soo jeedaa koonfurta, dahabkana wuxuu ka soo jeedaa waqooyiga, halka aqoontu ay ka soo jeedo Timbuktu. Waxaa sidaa loo yiri magaaladan waxay u dhowdahay saxaraha iyo webiga Niger, waana meesha lagu kala bedelan jiray aqoonta iyo dhaqamada. Waxaana ku yaalay warshad yar oo lagu koobiyay buugaagta laga keeno magaalooyinka kale. xilligaas soo saarista buugaagta aad ayay qaali u ahayd, laakiin xukunkii Mensa Musa waxay noqotay mid iska fudud. Marka laga soo tago taariikhda islaamka ee ah in Mensa uu ahaa nin hanti iyo sharaf badan haystay, haddana waxaa jira sheekooyin kale ay ku sheekaystaan dadka qaar ee reer Mali oo ah inuu ahaa dabaal ka oo hantidiisa oo dhan ku lumiyay diinta islaamka isagoo ka tagay dhaqanka dadkiisa. waa dad aan eegin xadaaradda iyo cilmiga laga dhaxlay taa oo ilaa maanta ka jirta wadanka. waa sheekooyinka afka laga sheego oo keliya ma ahan mid qoran. markii uu Mensa Musa geeriyooday, waxaa Mali soo weeraray oo qabsaday Boortaqiiska, waxayna galeen gumaysi socday 100 sano, waxaana kaga dambeeyay Faransiiska. ugu dambeyn, si shaki la'aan ah, Mensa Musa waa qofkii ugu qanisanaa taariikhda bini'aadamka. markii la xisaabiyay lacagtiisa, waxay noqotay in ka badan 400 bilyan ee dollar. intaas ayaan jeclahay inaan ku ekeeyo mowduuceena maanta. wassalaamu calaykum.